weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn. dibadbaxyo ayaa ka socda magaalada Khartoum maalintii labaad kadib afgambigii shalay halkaasi ka dhacay. waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan gurceel ka socota. waa madaxweynaha galmudug oo ku eedeeyay dagaalka gurceel in ay Soomaaliya ajnabiba ay ahlus sunna wal jamaa dagaalka ku taageerayaan. natiijadii doorashadii shalay ka dhacday 3 degmo oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa lagu dhawaaqay maanta iyada oo xubnaha soo baxayna ilaa iyo hadda ay haweenku heleen saami ballaaran. wariye maxamed xasan dhalo ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qardho. dadkani waxa ay u dabaaldegayaan markii ugu horeysay gole deegaan oo ay iyagu soo doorteen, laakiin waxa ay su'aashu tahay ma u fulinayaan waxa ay ka filayaan kuwa ku soo baxay codkoodu. waxay ka filan doonaan in golaha deegaanku kor u qaado adeegyada bulshada ugu horeeyaan caafimaadka, waxbarashada, nadaafadda, bilicda, amniga inay noqdaan golo deegaan oo baahiyaha rasmiga ah ee ka jira deegaanka kor u qaada. sidoo kale waxaa laga filayaa inay noqdaan golo deegaan oo leh matalaad sharci oo dhammaystiran oo shacab oo ka turjumi kara baahiyaha ay leeyihiin. sidoo kale waxyaabaha laga filan karo codeynta shalay shacabku sameeyay waxaa ka mid ah inay awood u yeelan karaan shacabka ku dhaqan degmada Qardho iyo deegaanada ku hareeraysan isla xisaabtan rasmi ah, waayo waa iyaga cidda go'aan ka gaaray cidda noqonaysa golaha deegaanka. 23 ayaa haweena 87 xubnood oo natiijada lagu sheegay inay ku guuleysteen doorashooyinka degmooyinka Eyl, Qardho iyo Ufayn. nidaamkii qabiiliga ahaa ee systemka hore in aanu ka baxnay in haweenku ay yihiin kuwa maanta iyagu codkooda si xor ah isku dooran kara iskuna hiilin kara. muddo badan baan sugaynaa arrintaas, maanta waxa cadaata haweenku in ay yihiin awoodda kaliya iyagu is dooran kara dadkana ay dooran karaan. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland waxa uu sheegay inaysan yaraysan dadaalka wacyigelinta, sidaas oo ay tahay waxaa jirta dadaan codayn oo qaatay kaararka codbixinta iyo kuwa xumaaday. wacyigelintu marna sidii ugu fiicneed marna ma ahayn, tabarta u baahan tahay iyo xoogga u baahan tahayna wax hadda anagu aan kaliya ku filaan karna ma ahayn. inkastoo haddana dadaalka u sarreeya aan samaynay, ilaahay idinkii waxaa xigaya waa dadkan oo helay dad ayagu doorteen oo u adeega annagu inaan shaqadayada sii wadano oo aanu u sii gudubno degmooyinka harsanaa ee Puntland. waqti aan aad u fogeyn waxaan isleenahay inaan dhammaystiri doono ugu dambeyn sanadka soo socda bartamihiisa ilaahay idinkiisa. inkastoo doorashadan u dhacday si nabada haween badanna ku soo baxeen, haddana ma tabasho la'a sida ay noo sheegeen kooxdan ka jawaabayay cabashada haweenka intii ay socotay codbixinta 3 degmo. ayagu laba islaamood baa umulay tii ay kaamba ka dhacday waxa caawiyay taliska qaybta gobolka iyo ciidankii goobta joogay markii foosho qabada dadkii meesha sheegay waxayna geeyeen xaruntii ugu dhaweyd oo markaa lagu dhali karo. laakiin hooyooyin culus way jireen, hooyooyin ka cabanaya iyaga oorle oo dusha laga maray way jireen, hooyooyin waxa jira oo kale xoogaa xanuunsanaayo nabaro lahaa naasaha iyo meelahan oo iyaguna dhaameejo iyo dhaawacyo dhaqni soo gaartay, laakiin waa la xaliyay intooda badnay. markayna soo wacaan oo dhahaan masalan ba uur baan leeyahay ama dusha layga maray, waxaana la joogtay wasaaradda haweenka oo ka jawaabaysay markaan u sheegno dhaano hebel waxa joogta maamo uur leh oo dusha laga maray, checkinkooda iyo waxooda iyaga sameynayay. wasaaradda amniga oo nala joogto taliska qayb nagala joogtana ayaguna waxay ciidanku geystaan ayagaan u sheegnay ayaga xalinay intaan gaari karna waan xalinay.